الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى بيسلماتي مهض مانتين اللينا وافجينا سن معنا محاضرة ذي كوبات dumarka khaaska u ahayd nadwa kasta aan qaban jirnay muxaadarahan dumarka ugu khaas yeelayno oo dumarka si khaas ah loogu hadlayo. cinwaanka nadwada sidaan xalay soo sheegnay dadkii joogay al-amaanatu fil islaam, amaanada iyo diinta islaamka. insha Allah nadwada qaybteeda hore culimadu way ka soo hadleen. hadda galabta insha Allah Sheekh Muhammad Umar Dirir yaa martiino ah muxaadarada inoo gali doona. muxaadaradu waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood. qaybteeda koobaad waa muxaadarada cinwaankeedu uu yahay al-xuquuq al-waajiba cala az-zawja, xuquuqda saaran gabadha muslimadda ah ee ka saaran يعني قولي هذا دنكيس حقوق إن شاء الله شيخ كاتب دونا أسئلة ويجري دونان يعني إن شاء الله وقت يقول عليليا وحنجوجين دونا محاضرة مركا يقعدوا لحدي أفرتن مركا إن شاء الله شيخ نسينا نمدو أفرتن دقيقين وأفرتن 20 دقيقة محاضرة وضو كدبنا إن شاء الله وحنقول لنا أسئلة مركا إن شاء الله سؤالها هلا قرأ أنتو شيخ محاضرة وضو محاضرة الشيخ مركو دمينا وحنقلي دونا أسئلة إن شاء الله شيخ ويدين دونا. هذا الشيخ نسود ويننا فليتفضل مشكورا. والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، أن حقوق ذا لقول له هي لبض قفص قبه ninka iyo xaaskiisa warar badan waynu waa dhageysateen, laakiin waa ku celinuun in xuquuqda la ogaadaana waxay faa'iido ka tahay in la isxaq dhowro oo aan la isku xadgudbin oo la isxurmeeyo ayay faa'iido ka tahay. halkan oo qurana maahe mar wal oo dadku ay arrin galaan ama arrin ay qabanayaanba arrinka aqoontiisa inay yeeshaan waa laga maarmaan. tan haddaad salaad tukanayso salaada cilmigeeda inaad yeelataa waa laga maarmaan. haddaad beec iyo iib wado iibkaa aqoonta diiniga ah ee looga baahan yahay waa inaad ogaato. markaad xaas samaynayso ama ooridu ay nin yeelato iyadana waxa laga maarmaana inay xuquuqdaas barato. ninkuna waa la mid. sidaa daraaddeed ayaa haddaynu waalidka nahay waxay nagu waajiba hooyooyinka iyo aabbayaasha da'yarteenna wiilasha iyo gabdhaha wakhtiga ay teenage-ka ama qaangaadhka yihiin, secondariga jaamacadda ku jiraan, ama qofkii la arkay inuu dee xil qaadi karo waa in la baraa arrinta guurka. siiba marka qofkii wuxuu guursado waa in la baraa xuquuqdii oo wiilkii loo sharxaa mas-uuliyadda ka saaran xaaskiisa, inantiina loo sharxaa mas-uuliyadda saaran ee ninkeeda iyo carruurteedu ay ku leeyihiin. kolkaa midibaka kale wixii uu weydiiyo ee xuquuqdaasa la yaabi maayo. dadkeennu inta badan carruurta waxba uma sheegaan. waxaa laga yaabaa markaa labadii qof inay isku dhacaan oo reerkii burburo da'yartu ay dhiseen. xuquuqdanna dee wax sahlan maaha oo ilaahay ciyaar uma jidaynine waxa loo jideeyey waa wixii reerku ku dhismi lahaa ee uu ku wada socon lahaa. xuquuqda iyada ah alxuquuqu bayna azawjayn, labadan xaaska xuquuqda u dhaxaysa mid ninkaa leh, midna gabadhaa leh, midna carruurtaa leh, midna ehelkaa leh
intaasi bay isugu jirtaa xuquuqdaas marka awridii kolkay garato xaqu ninkeedu ku lahaa ee ehelka la jooga ku lahaa ee ubadku uu ku lahaa ee waalidkeedu ku lahaa waxa weeyaan waa qof isdhowraya ninkiina intaa in leeg markuu garanayo waa qof isdhowraya waxaa jira wax la yidhaahdo cadaalad iyo ixsaan cadaaladdu waa in cid walba xaqeedii la siiyo ixsaankuna waa samafal waa in dheeraad loogu daro qofkii xaqaana kuguma lahayn baad siinaysa xaasku xaqaanay kugu lahayn baad siinaysa ninkaagu xaqaanu kugu lahayn baad siinaysa waa ixsaan ilaahay baa wuxuu yidhi ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلهي وحي فريا عدالة وواقف لبين حقي سقاط نكو حقي سيقادنا يا أريدنا حقي ذي والإحسان سبفلنا إلهي وذي فريا مركز سبفلك وامحي وينقفك الله السيا وحي وحق لها وحان هاي حقوق ذي الشيء دونه ee xaasku ay yeelanayso ama ninku leeyahay qaar ka badan waa inaad saaxiibkaaga kula jooga siisaa maalan tusaale ninku inuu xaaskiisa geeyo xajka waajib looguma leh ama cumrada geeyo ama meelo kale oo iska dalxiisa u geeyo waajib uguma laha xaasku hadday xoolo leedahayna dee iyada xajayso cumraysanaysa haddii aanay xoolo lahaynna dee waxbaba kuma waajibin laakiin ixsaanka wanaagsani waxa weeye in diintiisa uu kororsanayo iyadana uu kordhiyo oo xajka u geeyo oo cumrada geeyo oo haddii laba xaas uu leeyahay ugu cadaalad sameeyo labadaba u geeyo taasi xaq looguma leh laakiin waa ixsaan sidoo kale ruuxii dumarka ahayd ee oorida ahayd masaariiftii iyo meherkii iyo kharashkii oo dhan waxay ku leedahay maxay ninkeeday ku leedahay laakiin hadday maalqabeentay oo jeebkeedu iska fiican yahay oo haynteedu wanaagsan tahay oo iyaduba biilka bixisaba oo isagii miskiinka ahaa ay ka dayso oo aanay kalifin ama wixii ay u heli karayay wax kale ay ku darto wazaada khayran waa ixsaan weeye marka noloshuna saasay macna ku samaysaayo tanaasulkaa iyo waxisu kordhintaa iyo waxtarka ah xuquuqda haddii aynu ku bilowno xaasku ninka ku leedahay ila waa inaad xaqaagana waa xaq iyo waajib baa la yidhaha xaqa adaale waajibkuna qofka kaluu saaranya ama waajib baa ku saaran xaqna adaa leh xuquuqda ay maaragtay xaasku leedahay waa xuquuq u gaara iyada iyo mid ninka u gaara iyo mid labadooda ka dhaxaysa aan horraysiino xuquuqda iyada u gaarka ah xuquuqdaasi waxay u qaybsantaa xuquuq maaliya oo dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha oo ninka ooridu ay ku leedahay xuquuqdaasi waa 3 qaybood almehru waalnafaqatu wasukna waa meherkii wixii lagu noolaan lahaa masaariiftii iyo gurigii 3 qaybood wey xuquuqda aan meherka ahayn ee xaasku ay leedahay waxa weeye cadaaladii labada xaas uu sameynayay ama 3 xaas ama 4 xaas inta hadday islaamku u ogol yahay hadduu kari karayo waa inuu cadaalad sameeyo cadaaladii dhaqaale maaha laakiin waa garsoor waa simid la simayo labadooda waa xaqay ooridii leedahay dhaqaalena maaha waxaa ka mid ah almucaasharatu bilmacruuf ee la dhaqan wanaagsan oo ilaahay baa ragga faray wuxuu uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan xaasaska ula dhaqma wacaashiruuhunna bilmacruuf marka taasina waxay sheegaysaa qofka qalbigiisa in la ilaaliyo oo la raali geliyo oo jacaylkii jiro oo weheshigii jiro oo walaaltinimadii islaamku ay jirto oo tarbiyadii loo kordhinayay iyo diintii la barayay ay jirto cadam lidraari bizawja iyo waxyaalaha inuu ka ilaaliyo waa xuquuqan dhaqaale la xidhiidh laakiin dhaqan fiicana dhaqaalahana waxaa ka sii muhiimsan dhaqanka fiican
aynu soo noqono markaa xuquuqdaas xagga la xidhiidha dhaqaalaha meherkii baynu horraysiin lahayn meherku waa maal oorida u sugma marka ninkeedu uu gunto ee caqadka u gunto heblaayo guurkeeda waan aqbalay intaasuu ku sugmaya ama uu la aqal galo haddii aan marka hore waxba loo magacaabin marka hore waxba loo magacaabay wuu sugnaanaya haddii ay dhacdo marka hore inaan waxbaba loo magacaabinna markuu la aqal galo ama geeri timaado iyada lodkeedaa wixii lagu meheriye dadka isleegyihiin baa u sugmaya qur-aanka ilaahay uu ku sheegayoo raggii isagoo la hadlaya wuxuu uhi wa-aatu nisaaa saduqaatihinna nixla dumarka siiya meherkooda isaga oo cadiyo ah isagoo deeqa isagoo sharaf xambaarsan siiya amar ilaahay uu bixiye weeye taasina waa inuu lagu dadaalaayo aan laga dulboodin laa junaaxa calaykum in dallaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida aayaddaasina waxay tilmaamaysaa ruuxa dumarka ah in la meherin karo iyadoon meherba la magacaabin oo meherkii marka caqadkii u ansaxayaa iyada edooyinkeedii iyo walaalaheedii iyo hooyadeedii maxaa lagu meheriyun baa la odhanaya ama dadka isku filka yihiin qadiyadda la xidhiidha meherka innaga waxaa dhacda soomaalida had iyo jeer dumarka ma siiyaan ama uma qadimaan waa la isku yeesho amaah buu noqdaa laakiin waxaa wanaagsan in la kala qaato ninkana way u fiicanta xaaskana way u fiicanta ninka way u fiican tahay oo dee dayn baa ka baxaysa dayntuna waa dhib in dayn lagugu yeesho iyo inaad dayn baxda iyo maa fiican dee inaad dayn baxdo taasi waa faa'iidada xagga ragga dumarkana way u fiicantao xoolaheedii hadduu ninkeedii u heli karayo dee inay qaadato wey oo ay ku shaqaysato oo aanay gashi iyo daynun kaga maqnaanin hadday dhacdaba in xoolahaa xaasku ay ninkii ka qaadan weydo waa sidaa u badan tihiin dumarow oo ay dayn ugu yeelato sanad walba meherkii waxaa ku waajibaya sako sanadkan wuu ku waajibay sanadka ku xigana sakaa ku waajibay sanad ku xiga maxaa laga yaaba sakadiina yaraysaba ilaa adigaa ikhtiyaarkaaga uga qaadan waaye ninkii xoolihii uu ku haya haddaad tidhaahdo imika $4,000 $3,000 intaad ku leedahay sii wuu ku siinaya laakiin adigaa iska daaya oo ka qaadan waayo marka adiga masaakiintii dayntii way kaa sugayaa sanad walba carabta iyo ummadaha muslimka waxay yaqaanaan waxa la yidhaahdo meherka muqadam iyo mu'ahar meherka intiisa badan waa la bixiyaa in yarunbaa baaqi noqda muqadamkuna waa intaha la soo qadimo inta kalena gadaal baa laga bixinaya innaga waxa daboola meherka ama caqabad ku noqda dumarka la siin lahaa yaradka iyo gabaatiga oo raggu uu doonayo yaradka gabaatiga fujaanadan dumarku colabta kusoo xidhaan waxaasaa mashquuliya markaase xaqiina taba la ilaawaa waxaa kaloo dhaqanka soomaaliduba uu iska ahaa xaaska marka la furayo in meher la siiyo taasina mushkilad bay noqoto way sii yara fogaysa marka meherka ragga ka qaata hadday idiin helayaanoo ama xoolaha ku baac mushtaree ama xoola ku dhaqo ama dad sii ama masaajid ku dar ama meeshaa doonaysa la mar waa xaqaagi taasi waa midaynu baraarujin lahay weeye waaya meherku muxuu noqon karaa waa la yarayn karaa waana la badin karaa sharcigeennu muu xadidin laakiin sida fiicani waxa weeye inaanu badanin meherku oo wakhtigii rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka loo noqdo xaasaskiisa nebiga iyo hablihiisa waxaa lagu meherin jiray $200 kama badnayn qiimihii berigaa markaynu kan imika u soo celinno $200 kama badnayn ilaa $300 $400 $200 inta ka dhaxaysu ahaa marka haddii uu daraasayseed eegto innagana $1,000 buu marayaa waxyaabaha caqabadda ku noqda guurka weeye inay ooridu hesho nin wanaagsan oo dhaqa iyadii carruurteedaba ayaa uga muhiimsan inay xoolo hesho ilaa waa xurmi ah waxaynu u gudbi lahay nafaqada amaba biilka ama masruufka la siinayo oorida gasiinkii weeye islaamkeennu wuxuu saaray ruuxa dumara ma saarina ninkuu saaray
ninkaa waajib lagaga dhigay xataa haddii uu maaragtay ay uu waayo oo uu ka soo quusto sharcigu mararka qaarkood iyadiina ay samri weydo dee waxaba loo fasaxay inay qaadiga tegi karto oo uu fasakhaad siin karo kol hadday samri kari weyday gaajooto iyadoo dhaqaalaba ha lahaata laakiin islaamku wuxuu saaray ninka waa arrin aynu ku kala duwannay gaalada oo gaaladu waxay leeyihin ninkuna ha shaqaysto naagtuna ha shaqaysato ha shuraakoobeen oo waxay isku darsadeen guriga ha wada yeesheen biilka carruurta midiba bar ha bixiyo waa arrin dhib bay ku tahay hooyada iyadoo aynu ogsoonnahay hooyadii inay tahay halkii ummaddu ay ka soo baxaysa ubadkii bay dhalaysaa mar araxday ku sidaa mar uurkay ayay ku sidaa mar way jaqsiinaysaa duruuf adag ba haysa mar way xanuunsanaysaa ama oo dhiiggii caadada iyo bay leedahoo jawigeedu caadi maaha iyaguna kabay u geliyeenoo markaasay shandad u xambaariyeen waxayna orod suuqa orod bacadka iyo barafka naxariis darrada gaalku leeyahay weeye sidaa darteed baa qur-aanka kariimka ah ilaahay markii uu ka warramayay ragga waajibaadka saaran waxa uu soo horraysiiyey arrintaa masaariifta alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim raggu dheeraad bay dumarkii ka leeyihiin maamulkay ku wanaagsan yihiin xoolahoodana waxbay ka bixiyaan markuu ninku xoolaha markuu waxba bixin waayo masaariiftii ciyaalka waa idinka arkayoo dee waxa lumaysa mas-uuliyaddii iyo madaxtinimadii qoyska uu ku lahaa karaamadii iyo haybaddiina way ka dhacaysa hadday dhacdaba inuu ninku waajibkaa gudan waayo oo uu ku gaboodfalo isagoo xoog leh oo soo shaqayn kara dembiila weeye rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy bixasbi imri'in min alithmi an yudayica quuta man yacuul aw an yudayica man yacuul calaa macna xadiid qofka dembi waxa ugu filan ninka inuu xaaskiisii uu biilinayay masruufkoodii keeni waayu dayaco ama diin ha u baxo ama siyaasad ha u baxo ama masaajid ha ku wardiyayo ama qabiilaha dhex boodayo reerkii lagu ogaa ubadkii iyo ooridii hadduu dayaco oo biilkoodii uu keeni waayo waa caasi waa dembiile weliba shaqo uu ka xaragoonayana lama ogola xaabaha soo guro dhagaxa ha soo guro godadka ha qodo waxaan kaa socon maaya siday yidhaahdaan aniga shaqadaa ma qaban karo kaa socon mayso nafaqo maxaa la yidhaahdaa intaynaan taa dhaafin ilaahay mar kale aayad kale uu ku celeeyo wuxuuhi wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkii carruurta loo dhalay ku abtirsanayeen waxaa xaq loogu leeyahay inuu biiliyo dumarkaa dharkooda iyo dhuunigooda dharka reerka isagaa keenaya dhuunigiiyo waxay cunayeenna isagaa keenaya carruurtii iyo xaaskii iyo xataa hadduu iyada furayba hadday kala tegeenba sawtan carruurtii hayse isaga u shaqaynaysa qadarka uu bixinayo ilaahay ma cayimin intuu noqonayee awooddiisaa lagu xidhay alla wuxuu uhi liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima aataahu allah qof waliba intuu karaya ha bixiyo kii maalqabeeni ha kordhiyo kii dhexdhexaad intiisii ha bixiyo kii faqiirana la qasbi maayo intuu kari kara ha bixiyo hadday dhacdo isagoo hayn lahoo kari karaya inuu yaro hakrado waa maxkamaddu way uga kordhinaysaa waxaa la leeyahay intaasaad kari karaysaa u kordhi waxaa daliilu ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa u timi xaaskii abi sufyaane hinde la odhan jiray waxay leedahay ninkaygu waa yaro laxajecla adagya wixii aan u baahnayn ima wada siiyo sidaa daraaddeed dee waxba ka xadaa xoolihiisa oo biilka carruurta ma ku kordhiyaa isagoon ogeyn nebigu waxau idhi haa adigoon xadgudbayn way kabi kartaa wixii uu siiyey iyada oo markaa aan xadgudbaynin nebigu wuxuu uhi khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiik wayakfii baniik riwaayadii bukhaari warinaya adiga iyo carruurtaada wax idinku filan ka qaata marka uu dee dhammaystiri waayo wixii loo baahnaa arrintani arrin sahlan maaha xilkaa nebigu aad buu geedka rag la yidhaahdo ugu adkeeyey wuxuu leeyahy faataquu llaha fi nnisaa fainakum akhadtumuuhuna biamaanati illaah waاstaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah walakum calayhina anlaa yuطiina furushakum axada takrahuuna
ilaahay kaga cabsada dumarka ammaanaa ku haysaan oo cawradoodii waxaa ku xalaashateen sharciga ah iyo meherintaa laydiin meheriyey waa dardaarankii u dambeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka dhaqaalihii waa noocaas iyadana waxaa la gudban waajibka xagga dambe aynu ugu tegi doonaaye waxaa meeshii loogu talagalay inay marayso oo biilkii isaga ahaa hadday dad kale ku shubto ama tabarucaad ku bixiso ama hagbada ku gasho oo meeshii ay kala dirto oy tidhaahdo waxba ma hayna ama carruurtii bakhtiiso waa dembiile hagbadaha aa gashaan ninku waa inu kula ogaado waa dhaqaalihii reerka waa biilkii uu bixiyey hadduu isagu leeyahay wey waxala ninka iyo xaaska iyo carruurta intaasaa wada leh marka aduu keligaa gaar uma qaadan kartid keligaa waxaad gaar u qaadan kartaa hadduu isagu kaa maqan yahay carruur iyo cid kale kula joogtaa anaanay jir keligaa baad joogtaa 200-300 oo masaariifa buu kuu soo diraa meeshaad doonaysa markaa mariya khayr leh laakiin haddii reerku wada biishanayood gaar u biiriso ood agbad ku gasho adiga iyo carruurtiiyo ninku waa wada leedi keligaa ma lihi marka taladeeda waa inuu kula ogaado oo tidhaa khayr allah ku siiya ninkaygiiow intaasaan ururiyey oo dhaqaalaa hagbadaasaan ka ururiyey waa biilkeennii maxaynu ugu talinaa miyaan qaataa majagaan inoogu iibiyaa bas dacwaddaan ku bixiyaa ايش رايك maxay kula tahay sida la doonayaa waa sidaa laakiin inay qarsato sax maaha qadiyadaas waa qadiyadii biilka waxaa loo gudbayaa markaa suknuhu waxa weeyaan waa gurigii ay geli lahayd xaasku askinuhunna min xayثu sakantum min wajdikum walaa tudaaruhunna litudayiquu calayhin dejiya buu ilaahay meesha degan tihiin oo ninka mustawihiisunbay xaaskuna ay maaragtay taagan tahay oo hadduu nin ganacsado maalqabeena yahay meel fiican buu u kiray hadduu faqiir yahayna sandaqada mabuul meeshii uu dee kari karayo ayuunbuu u kiraynayaa halkuu ninku galo dee markii horeba ay ku wada noolaayeen meel la mid ahun ayaa ay noqonaysaa guriga loo kiraynayaa xuquuqda la xidhiidha aan dhaqaalaha la xidhiidhin iyadana horeynu usoo tilmaannay oo waa saddexda arrimood baahanu cadaalad samaynta iyo la dhaqankaa wanaagsanaa nebiguna aad buu uga dardaarmay calayhi salaatu wasalaam in dumarka loo ilaaliyo aan lagu xadgudbin waxaynu markaa u soo gudbi lahayn xuquuqda xaaska uu ku leeyahay ninku tii ragga lagu lahaa ee ku lahaydeen inaha u muhiimsan inahaasay ahaayeen waxaa haddii lagu darana lagu dari doonaa uun inuu ninku tusaale u noqdo xaaskiisa diinta bariddeeda iyo cibaadada iyo rabaayadda inuu hormuud u noqdo maadaamuu yahay odaygii meesha oo aanu noqonin qof abaadayoo isaguba wax arrina aan haynin oo cibaadaysanayn taas sax maaha waa inuu diinta horseed ugu noqdaa xuquuqda ninku uu ku leeyahay xaaskiisa ayaa aynu u gudbi doonaa waxa kow ka ah wujuubu daaca dumarow ninku wuxuu xaq idinku leeyahay inaad ka arrin qaadataan meeshu waa dowlad yar qoyskan la dhisayaa ciyaar maahee waa dowladdan dalka ka dhisan oo kale dowladdaas madaxweynena way leedahay wasiirana way leedahay shaqaalena way leedahay marka dowladdu waxa u muhiimsanay ku socotaa waxa weeye kala amar qaadasho wasiiradu hadday maanta ka amar qaadan waayaan madaxweynaha oo mid waliba uu yidhaahdo waxa aad sheegtay kaamaan dhegaysanin oo askartu ay amar diidda sameeyaan dowladdaasi way kala yaacaysa way burburaysa marka arrintaasi waa kow daacada marka waxaa looga baahan yahay dumarka xaaska ah nin kale waayahay baa looga baahan yahay waayahayda waa inay badisaa wixii khayra ee diinta u fiican ee danta reerka u fiican ee aan diinta ku xumayna dhib lahayn waxaa yeel heblaayoy iyo waxaa ma yeeli karaysaa iyo waxaasaynu u baahannahay waayahayday badinaysa waay meesha ma taallo waay maxay waxaas ku dhaceen ama waa ayo maxaan u samaynayaa dee ma taallo meesha dowladda inaga burburaysa ragga markuu ilaahay tilmaamay aayaddaa suuratu nisaa ee aynu soo akhrinay waxaa waajibkiisa raabu xusay dumarkana uu ku xigsiiyey الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم واجبات كرق صارن واكوات دمر كيبو شيء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله دمر كان الله أهرمود الكان رق أو شيء الله أهرمودين يسارين حصي
dumarkana laba arrimood oo reerku ku taagan yahay oo xaqa lagu leeyahay ugu culus buu sheegay arrinka u horeeya waa maxay waa qaanitaat daa'icaat waa kuwa adeecaya adeeca ilaahay bay adeeca subxaanahu wa tacaala daacada cidda ugu horraysa laga tala qaadanaya waa ilaahay waalidka ilaahay baa ka horeeya oo sawjka ka horeeya oo carruurta ka horeeya kow cidda xaq leh ugu horraysa waa rabbi subxaanahu wa tacaala yaa xaqa ilaahay ugu horeeya wey xuquuqda isagaa ugu horeeya qaanitaat marka waxa ku xiga ninkiina way aqbalaan ninkiina way aqbalayaanoo markuu idhaa waxaasaynu u baahanay samee waaye bay leedahay waaye raggu markaa arrintaasi aad bay ugu weynti markaa madaxadayga iyo canaadka iyo la tirsiga sax maaha waxaa halkaas aynu ka arkaynaa markay waayahay leedahay waa wax kastuu xaq ugu leeyahay kow ka tahay nafteedu marka uu meheriyo ee meherku ku dhaco ee uu aqbalo xilkii aabbaheed uu ka wareegayo hooyadeed isaguu ku wareegay hadduu idhaahda inakeen guri xaggaasaan ku geynaya waddan xaggaasa baynu tegaynaa waayahay bay leedahay alaabta shadadeeda ay soo qaadanayso kudhuugadhaa kale ma keenayso ma odhanayso waxaasi ma jiro cudurdaar ma xagga sharciga aabbiyo hooyo xilkii uu ka wareegay markaa isaga ayaa wixii aan sharcigu diiday meeshuu geynaya hadday waddan gaala tahay dee sax maha taas oo diinteeda ay wax ku noqonayso laakiin meel islaam hadduu geynayo ama aan dee dhaqan iyo diin midna waxba ku noqonayn iyo meeshuu dejinaya isaga u taalla inay tidhaahdo maaha magaaladaa ma degade anugu magaaladaa reerka iyagu ma yaallo magaaladaa ma yaallo anugu ma tegayo sax maaha reerka isagaa ka taliya way raacaysa taasi waa qadiyadda daacada nafteeda hadduu ka doono mucaamaladii xaasnimo iyo galmadii waa inay oggolaataa haddii aanu maanic sharci jirin haddii aanu dee wax ka hor joogsanaya aanu jirin maalan hadday xanuunsanayso dee way u sheegi waanay kari karayn haddaanay daahir ahayn way u sheegi hadday cibaado ku jirto xaj iyo soom waajiba way u sheegi wakhtiyadaasoo kale ma qasbi karo ama inuu codsigaa soo jeediye maaha wax cudurdaari haddii aanu jirin galmadii ma diidi karayso hadday diiddana malaa'igtu inay u cadhaysan tahay ayaa uu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidkii bukhaari ku sugnaa waxyaaba ay ku adeecaysa xaasku ninka waxaa ka mid ah bixitaanka haddii gurigii cid imanayso waa inuu la socdaa ninkuyo uu ogaadaa yaa oo waxay leedahay maanta waxay noo imanayaa reer hebel qoyskii hebel hebel qoyskiisi baa inoo imanaya ama heblaayaa imanaysa waa asxaabtii waa qaaribtii waa dadkii ay dacwadda wadeen cid kasta ha ahaato guriga taliyihiisu iyo cidda laga amar qaatay ilaa waa meel madaxtooyaha madaxweynaha maamulo markaa iyaduna dee mas-uul bay uga tahay saa daraaddeed waa inay u sheegto waxaa la diidaya inay isku dhacaan waanay dhacdaa dee innaga dabeecadaheenna inay gabadhu markaa dad badan keenta ama gurigii qaar seexda ama obreeshano iyo waxyaaba ka fuliya oo markaa kulamo lagu sameeyo ama la isweydaarto ama la buuqo dabeedna uu u yar dulqaato haddana u yar dulqaato marka dambe uu ku qarxo odhaa meesha ma gurigaygiiba mise dad kalaa leh markaasaa reerkii isku dhacaya taasaa la diidanya markaa kolka guriga cidi imanayso ha u fasaxda buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka gabadha xalaalu maaha dee inay gurigii cid aanay ogeysiinin ay soo geliso ama uu isaguba karaahaysanaya ninkaa isagaa waxyaabuu ninku xaq ugu leeyahy waxaa ka mid ah inaanay soomin ama xaj la imanin haddii aanu ninku fasaxin hadday iska jibbooto ay tidhaa bishanba waan soomayaa soom sunno ah uhaa inagadaa soomka ah aniga howlahaygana wuu kala tuurayaa shaqadana wuu kaa daciifinayaa caanaha ciyaalkuna way gurayaan ka jooji soonkaa inagadaa ay tidhaahda maya waa cibaado ilaahay oo kuu joojin maayo way qaldantay waayo cibaadaduna waa sunne xaqa ninkuna waa waajib
waajibkaa ka horeeya mar walba sunnaha marka isaga laftiisuna dee hadday xaaskiisu diintii ilaahay uu jeclaysiiyo qof wanaagsanayta waa inuu ku saacidaa way fiicanta laakiin hadduu taa garanba waayo oo dan uu arki waayo inay iska cidhiidhsato maaha waay waxaa runtii waxyaabaha ay kaga amar qaadanaysa ka mid ah inaanay bixin oo socodku hawl buu leeyahy nin kale dabaddaa lagu ogyahay oo uu shaqo tegayaa barafkuu marayaa bacadkuu marayaa dabayshuu marayaa dhaqaalaa loo diroo la yidhi soo dhididoo keen wixii la cuni lahaa lagu raaxaysan lahaa lagu noolaan lahaa baa loo diray qof dhaqaalo loo diray arrin sahlan maaha iyadana gurigii ciyaalkaa loo diray gurigii ciyaalkuna wax sahlan maaha ninkuba ma kari karaba hawshaa marka carruurta rabaayadoodii korintoodii waxbaridoodii ilaalintoodii arrimahaasaa loo diray marka hadday baxayso oy meel tegayso walow diinba ha ahaato muxaadaraba ha ahaato cashar la dhigta ha ahaato dacwaday faafinaysa ha ahaatee waa in ogolaadaan hadduu idhaahdo anigu casharkaa anagaa ninkuugu yeedhaya guriga ka joog muxaadaradaa ha tegina iska joog wacdigaa ha tegina iska joog xajkaa sunnaha iyo cumradaa iska joog magaaladaa ha u bixin waayahay wey amarkiisu waa waajib cibaadadana waa sunne arrimahan oo dhan waa sunna aynu ka hadlaynaa faralkii gaar baynu uga soo hadalnay bal haddee agata inta la isku qabsadaba inta mushkiladeenna u badaniba waxay ka taagan tahay aroos la tago soo maaha dumarow arooskii intay isqurxisay dahabkii isku taagtay iyo nakuushii dhag isku siiso ayaa arooskii u baxaysa 12 habeenimo ama 4 habeenimo iyadoo ka tuuraysana way imanaysa isagiina halkan uu rafanaya wax soo dhaweeyana ma hayo xaaskiisii u baahnaa ma hayo ciyaalkii halkan ay ka qaylinayaan dad kalena way isxambaar dad kalena way u shaqaynaysa isagiina halkan maba ogolaaninba yaa ku yidhi heblaayo wakhtiga soco war miyaanan ikhtiyaar lahayn dee halkaasaabay ka bilaabmaysa buuto wareen dagaal baaba bilaabmayba ma rabna qoysku inuu inaga burburo ma doonayno qoysku tartiibtaasuu kala leeyahay waxay leedahay arooskaasaa jira walaala arooskiisii weeye walaashay weeye in adeerkay weeye in abtiday weeye ehelka weeye asxaabta weeye hebelow ma baxaa oo ma tagaa yaa marka hadduu idhaahdo haa waad bixi kartaa wakhtigaa soo noqo anaa carruurta kugu sii simi ama ciddaasi ha sii hayso ammaanadii ciddaa kusii ogow sax weeye hadduu debadda joogo telefoon bay u diraysa hadduu debadda joogo meeshii maaha nin qaba inay arrintu noqoto laba nin meeshii inay wada joogaan maaha waa nin iyo xaaskiisa ayaa loo baahan yahay arrintaasina aad bay muhiim u tahayoo isagoo dhintay baanay xataa baxayn isagoo ifka iska jooga daayo arrimuhu see u adag yihiin dumarow wuu dhinto wuu allaysto aakhiruu tegayba gurigii uu kaga tegayay ka bixin baa layay ilaa intay caddad baxayso oo ciddadeedu dhammaanayso ilaa intay ciddadeedu dhammaanayso asayda dhigaysa asayda sooma taqaaniin baasha la yidhaah hengefta ilaa intay dhigayso iyo gurigii ka bixi ma safrayso meelo fogfog ma tegayso gurigaasay fadhiyaysa laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina waa suurad qur-aanka suuratu dalaaq bilowgeeda wey iyaguna ayay guryaha ka bixin idinkuna ha saarina dadka ehelka ahaw marka la furo iyo marka laga dhinto labadaba ilaa intay caddad baxayso sharcigu wuxuu qur-aanka ilaahay uu ku sheegay inuu ninkii iyo xaaskii marka ay khilaaf dhex maro in xal la raadiyo oo aan waxaan furiinka la yidhahdo lagu degdegin dumarow mar alle markay xaasku cadhooto waxay la soo taagan tahay ifur haddii lagu furo maxaad ka faa'iidi ubad baad weyday aqal baad weyday odaygii baad weyday bannaan baad shaydaanka ugu baxday kuwii kugu wiirsan lahaa ee kugu qosqosli lahaa iyo shaydaankiiba bannaankaasaad ugu baxday docda reerkiinnuna ku qaadi mayso aqalka reerkiinnu gabadh la soo furay ma qaado way ka weynto way cuslaatay imaka tii yarayda boodboodaysa maahee waa gabadh culus oo weyn marka adigoo isxambaar ahoo ciyaal wata aqalka reerkiinnu ku qaadi maayo kaaga ku lexe jeclow hooyooyinkeennii hore wanaagsanaa marka la yidhaha waa lagu furayaa aqalka udub xooggiisay qabsan jireen halkaa dhexoo waxay odhan jireen lay furi maayo halkaasay xejisan jireen sax bay ahaayeen waxay ku lex jeclaabaysaa guriga suuratu qad samci bilowgeeda
suuratu qad samic bilowgeeda akhri waa naag ninkeedii ka dihaartamay sidii berigii hore wax loo furi jiray buu furay berigii hore wixii furitaanka loo yaqaanay nabiga uu soo ashkatootay waxay leedahay carruur baan u hayaa cimrigaygiina waa weynaaday meel aan ku kala tagno ma hayno bal qiil eeg daanu qiilku ma hayo wax alla waxaan isugu soo kiin celiyo ma hayo halkaasee ka cataawday halkaasee ka calancash hadalkii bay nabiga ku celcelisay way ka dhaqaajiwada reerkeeda jeceshay faraj buu ilaahay keenay suuradda qad samic baa lagu soo dejiyey qaybteeda hore akhri ilaahay uu markaa hadalkeedii maqlay subxaanahu wa tacaala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakumaa ina allaha samiicun basiir ilaahay wuxuu maqlayaa oorida ama xaaska kula doodaysa nebi maxamedow iyadoo ninkeedii ka cabanaysa hadalkiina nebiga way ku celcelinaysaa calayhi salaatu wasalaam watashtakii ila allah ilaahay bay u cabanaysa reerkeeda burburayee ka xunta saasaa loo baahanya inuu ninku ugu xaasku inay gurigeeda ku lexa jeclowda wey dumara waa inay ogaataan ninku inaanu guriga idinka lahayn guriga raggu idinkama lahaa guriga waa la wada leeyay miyaan la wada lahayn guriga waa la wada leeyay inaad nacasowdo maaha in cagta dhulka lagu dhufto maaha meeshaa ka taliya waa arrin farsamo xagga maamulka ah laakiin guriga adna waa leeda isna wuu leeyay waxaa la yidhaha labadan qof way isguursadeen soo maha way isguursadeen macnaheedu waa maxay iyana way soo guurtay isna wuu soo guuray meel dhexay isugu yimaadeen marka siduu aqalka u leeyahay baad u leedahay hadduu ku idhaahdo reerka iskaga tag adaa iskaga tegi baad leedahay ma tegaye markaasay dabeetana arrinku biyo dhigaya la isfahmaya xagga reerkayga uga taga reerkayga iyo carruurtayda waan joogaa wixii qaladana waan daynaya aduguna wixii qalada daa hadday dhacdo haddaba in labada qof ay isafgaran waayaan oo weliba qaladka iyadoo ay leedahay wuu waaninaya waa markay gefka iyadu leedahay wuu waaninaya xaaskiisa kow hadday waanada aqbali weydana sidaa qur-aanka ilaahay uu ku caddeeyey gogashu uga durkaya meel gaaruu seexanaya hadday intaasi anfici guriga kama tegayo guriga inuu ka tagaa waa dudmo oo dudmadaa lama ogola meel buu seexanayaa gaara nooc mudaharaada weeye iyadana waxa la doonaya inay soo dhawaysay tiraa bal dul qaadoo gefkaa waan iska daayay ilaa waxba lama madaxadaygeen hadday taasi dhici weydana qur-aanku wuxuu fasaxay in la edbin karo oorida oo waxaan dhib ku ahayn lagu dhufan karo haddii faa'iida ka soo kordhayso arrintaasina qur-aankaa ilaahay uu ku caddeeyey wax qur-aanku uu sheegayna in la xaaraantinimeeyo oo la diido waa qalad oo la yidhaahdo arrintaasi sax maaha macnaa qur-aanku kol hadduu sheegay waa in la ogolaado facala ra'si walcayn dumarkii waa wanaagsanaa salafiyaadkaha mid ka mid ah baa waxay lahayd war waxaa jirta diinteenna iyo qur-aankeenna meel aynaan ku camalfalin hebelow waa maxay buu dee waxa weeye labada qof markay murmaan sowtii la yidhi ninku gabadha ha edbiye maalinna imaad edbininoo waxba igumaad dhufanine diinta ku camalfaloo raac almuhim waxaynu leenahay waxaasoo dham waa xuquuq meesha taalla oo labadoodaba midba ka kale uu ku leeyahy xuquuqda labadooda ka dhaxaysa waxaa ka mid ah inuu midibo ka kale ehelkiisa xidhiidhiyo adigu haddaad tahay xaaskii ehelkaagii ehel kalaa kugu soo kordhay aabbo kalaad yeelatay hooyo kalaad yeelatay walaalo kalaad yeelato waa inta ninka xaggiisa ka soo jeeda isagana ehel kalaa u soo kordhayoo waa ehelkaaga ehelkaagu isaga wuxuu u yahay ehel siduu isaguba ehel u leeyahay marka labadiina mid waloo ka midihiba waa laba tol leh adiguna laba tol baad leedahay isaguna laba tol buu leeyahay sidaa daraaddeed waa inuu midibo ka kale ehelkiisa xidhiidhiyaa adigu ehelkiisaaad xidhiidhinaysaa wixii sharcigu ku ogolaya baad u qabanaysaa ka diiqadoon maysid eryina maysid isaguna waa inuu ehelkaaga sidaasoo kale soo dhoweeya aabbaha hooyada walaalaha wixii loo qaban karo ee arrina ee dhaqaala waa in la siiyo adiguna saasoo kale aad u samaynaysa noloshu markaasay macnaa samaynaysaa ay macaanaanaysa waa ixsaan iyo samafal waa waxyaabaha labadoo waxay noqonayaan xabag isu haysta labadii qoys ayay labadoodu noqonayaan marka iyadiina waa safaarado halkaasaa lagu ogyahay oo ehelkeedii baa la xidhiidhaya isagiina waa safiiro halkanaa lagu ogyahay oo ehelkiisii baa la xidhiidhaya marka waxaynu doonaynaa 10 qoys inay xidhiidhiyaan 10 kun oo qof
وقيس والبا انت سوق فكسي خيلان tahay oo saa loo kala dego la isxaq dhowro la isu dul qaato la iswanaajiyo islaamku taasu doonaya xuquuqda waxyaabaha isku leeyahay waxa kamid ah in diinta Ilaahay ku wada noolaadaan qoysku hadaanu diin lahayn dadniba ma jirtada gurigu waa inuu noqdaa guri ku salaysan diin markaas uu wada dhaqanku macaan noqdaa oo diintu ay tahay shayga la ilaaliyo lama taabtaanka ah markaas habeenkii way ku wada cibaadeysanayaan sidoo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa uu duceeyay ruux dumaraho nin intuu habeenkii salaatu leelka u kacay xaaskiisina toosiyay haday kici weydana biyo yar wajiga kaga saydhiyay allah u naxariisto iyadiina wuu duceeyay haday habeenkii cibaado u kacday oo ninkeediina ay toosisay haduu toosi waana biyo yar wajiga kaga saydha labadii qof الله يحسوسين شيطان ما ماشي كعرّو ملاك باتمد نحريستي لهاي بوي كوب بضتي بركات تمد مركا خلاف كنو يرعض كذلك واجبات كلمه ذا بصاره وحكم بدا عرورتي آيها يسوي مادن ما هين همد قتانا وقرا ما هين الراحة الدنيا وقاتانه وحلو تاغي هي إنجيل يقرن لصو صاره دلك بدبادية ودين تبدبادية ومركا dhimataan idin soo duceey oo cibrigiin loo dheeraaday may noqon doonaan caruurtu marka caruurta waa aayihi way aayihi idinku aalahaydeen iyo mustaqbalkii umadu baa ilahayd way rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu lahaa waxa guursataan xaaska dhalaysa ninkeeda jecel tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukathirun bikum ulama yawm alqiyamah maalinta qiyaamaha umadahan idinku faanaya waa la sufara tirsanaya marka sida aakhira la isugu faratirsanaya adduunkana la isugu faratirsanaya marka waxaad niyoonaysaa marka aad guursanayso inaad u badasho diinta u adeego oo dalka u adeego oo dawladda islaamka u adeega taasaad ayaa niyada gelinaysa waynu ka duwanahayna gaalada labada gaalkiiyo gaalada waxay isu guursadeen inay raaxaystaan hamadooda iyo baahidoodana gutaan sidaa daraadeed ba ismudaan oo iska jaraanba dhalmada والله maxaynu ku falaynaa ciyaalka arsaaqadaadi waad haystaa antaydi waan haystaa deena waxba kari weynaa dawladda ayna siinayso xawayna dhalinba waxaynu dhalaba uma baahnine meelaheenana iswadwadan oo aynu iska warwareegna aynu iska dalxiis hadday isku fulana waan isku fulaya warkuba intaas ku dhabaaday kuleey maxay naga galay mustaqbal dambe hadaynu inagu dhimanayba waa aragti gaaban oo liidatiya hayaraan weey waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay in aynu soo saarno ummad wanaagsan oo rabbaayad leh oo diinta islaamka yaqaana oo dad loo aaya inaad 10 ciyaala soo saarto oo dib jira ah waxa ka roon inaad laba miir qabo oo alla yaqaano aadaab la dhasho rabbaysay baa ka fiican marka in wax la dhala ul ma arintu dadka la dhalaya waa lagu tabcaya waxa la soo saaraya dad diinta yaqaano labada qof hareeraha ay ka taagayeen fanu tarbiya فن تربية الأولاد فن مهم إلا لبدا والد أي برتان سدا علمك أي برتان عرورة لغو ربيانا مهم وعلم دان ودين تلقات أو قرآن لا لبرتا 10 البرتو لي عرورة مرحلتين مريا مروا يريرين مروا نحنحات مروا قاقار بيكون دويه مرحلة والبع عرورة سلو ولا سعودة لي مركا والد كان نباتها هاي ستوحى كاملة ama sababaha ay caruurtu gacantooda uga baxaan 10 kaasa ka dhiman sidee caruur loo koriyaa labada waalid waajibkan way u wada saaray abuhuna kaalin buu leeyahay hooyaduna kaalin bay leedahay marka caruurta la korinayo sidaa daraadeed waliba kaalintiisa buuxiyaa marka caruurtu waa weynaadaan aabba kama maarmaan hooyo kama amar qaataan way jiiraan siiba wiilashu marka way la helo aabihii amarkiisa waa inuu shaqeeyaa aragiisa waa inuu shaqeeyaa tilmaamihiisi waa inay shaqeeyaan haymana baa leh haymanatul ab cala alawlaad sida shimbirku baalasha uu kala bixinayo caruurtiisa u ilaalinayo ayaa uu aabihiina u ilaalinaya markaasaa lagu farxaya bannaanka waxaa imanaya caruur wanaagsan oo diinta yaqaano oo cibaadada yaqaano ummadda xaq dhowrayo aadaab laho quruxdooda halkaa ka muuqato haddii kalena kuwa sunaysan baa soo baxaya marka waajibaadka saaran sida wada jirkaa u saaran kuwaasaa ka mid ah waxaasoo dhan markay ku guulaystaan ayay u gudbi karaan intaa aqalka markay dhammaystiraan bay u gudbayaan arrimihii dacwadda iyo in diin la faafiyo
iyo in dadka wax loo taro laakiin iyadoo qoyskii lagu fashilmay maxaa loo gudbi ammaanada u horeeya labada waalid ay u hayaan ummadda waa ubadka waa ehelka la jooga kuwaasaana ilaahay uu ka bilaabay markuu yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha marka waxaynu leenahay dhaqankeennii soomaaliga ahaa uun ma raacaynayno waayo dhaqanku diin maaha laakiin diintaynu raacaynaa dhaqanku wuxuu ka waafaqsanaa diinta waa sax laakiin wixii uu diinta ku khilaafsanaa ragguna waa inuu ka tago dumarkuna waa inay ka tagaan waxa ilaahay inagu addoonsadeen dhaqan inoo ahay waa islaamka qur-aankii baynu akhriyaynaa oo inaga arkaynaa xadiidkii baynu akhriyaynaa ciddaynu ku dayanaynay baynu haynaa rasuulkiiyo sala allahu calayh wasalam iyo asxaabtii iyo xaasaskii dumarka iyo asxaabtii kale marka taasaa akhriyaysaan taasay ku sacbi karaysaan nolosheena dabadi iyo guda mid kastaba ahaato waxay intaa la sii xidhiidhown akhlaaqiyaadkoo la ilaaliyana aada bay muhiim u tahay aqalka hadday tahay iyo labada ninka iyo xaaska akhlaaqiyaadku iyo asturnaanta oo labada qof ay markaa asturan yihiin sidii sharciga uu faray weliba dumarku weliba gurigu bal waxaad akhridaa suuratu laxzaab iyo suuratu nuur iyo suuradaha akhri intay ka sheekaynayaan guriga cawradiisa iyo dumarka cawradooda iyo wakhtiga la kulmi karo iyo sida la isu salaamayo iyo albaabka sida loo garaacayo waxaasoo dhammi waa aadaab albuyuuti fi lislaam aadaabta ay leeyihiin guryuhu iyo islaamku u jideeye wey aadaabta haddii meel laga dhaca ceeb weyn baa timaada aadaabta waxaa ka mid a ajaanibta in guriga laga ilaaliyo haddii cidi shaqaynaysa ay noqdaan dumar dhadig ee aanu noqonin nin ajinabi mid khaadimoo shaqaynaya hadday tahay guriga iyo hadday tahay gaarhigaba ninkuna waa inuu ka hinaastaa gabadhuna waa ina ka hinaastay taa diidaa waayo fitna waxa la yidhaahdo ayaa jiro oo shaydaanku uu ka faa'iidaysto islaamkuna uu ka hortegay waxaynu ka hadli karnaa aad bay u badan yihiin ee xuquuqdan iyo aadaabtan la xidhiidha qoyska laakiin wakhtigiina wayna soo hayaa inta kale su-aalahaynu u dayn doonaa insha allahu aad baa u mahadsantihiin haddaad tihiin dumarka halka fadhiyay dhegaysigiina wanaagsan ilaahayna waxaa ka baryayaa inuu idin barakeeyo ama inoo wada barakeeyo qoysaska iyo ubadka iyo ehelka iyo aqalada iyo arsaaqada iyo adduunka iyo aakhiraba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu